بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويلكم ولا ليال. ويلكم هذا واجب نبريا نكا ويلكم. نجيست حوضا موسيقى. صاقلة إن شاء الله تبارك الله. أحيانا important يا ما أنت كهربنا الصومالي اللي يبدأ وبقى على اللغة بعدين. kala gadanaya soogal walaalayaal wax muhiim ah ka hadlaynaa maanta anigu horaan u sheegay waxa ka socda wadanka laakiin Soomaalidu waa dhiga adag tahay subhanallah سبحان الله سبحان الله لا سوق لا سوق بحسنه ما تي ويوم السبت وحنا هنا نقول شيء جاية والله الرسول يقول جهين وهالكلمة دوت ودعايدنا أنا كدريني نتعني دعايد أنا مكا الله سوق لا ولا عيال الله سوق لا نسمع قلنا كل جيل الله سوق على سوق سمع على سوق لو واحد important يعني هي إن شاء الله برنامج نوبوحية نوكلا كعية برنامج نوبوحية ولا ليال وحميهينو important يو interest أن كنا هي أنا جوهران وشيء لكن سومالي دو سيد ده واحد ليس إني دقة ذكته مركا على سوق لو ما أنت وحكست ولا عدين هيا وحي جرى ولا شيء هيا إن شاء الله بإذن الله الكريم مركا ولا ليال سوقلا برنامج هلا كلا كعيو يا هلا كعيو برنامج هلا بكعيو هلا شير قريو سوقلا ولا ليال إن وحن إني شيء هيا ما أنت وهالكان إني كعدين هيا مددير أيام وحن كسو هيي Soomaaliya waxa loo keenay 36 container oo huba ayaa la keenay wadanka Soomaaliyeed oo lagu gargaarayay Soomaaliya in containeradii aan ka sheekeyn jiray labadii bilood oo hadda la soo dhaafay containeradii waxa lagu hubeeyay qabiil beeleed waxa la yiraaho si argagixisada looga dhigo qabiil beeleedkaas wariyuu yahay qabiil beeleedkaas wuxuu yahay ana inii sheegay haddii weegan ayna noqon oo maanta ay sabti ah oo aan ku jirno wiiga soo socda maxamed cabdullaahi farmaajo iyo al-shabaab mar kale waa la is arkayaa gacan saar baa la wada yeelanayaa waa la isla shaqaynayaa maxamed cabdullaahi farmaajo wadanka waa ka tagahayaa oo ay ni sheegay wadanka ma dhameysanayo horaan inuu ku sheegay waxa u malayseen in aan iska hadlaayo ma iska hadlaynin anigu laakiin maxamed cabdullaahi soon as possible wadanka waa ka tagahayaa ayuu wuxuu ka sheegtay ninka la leeyahay in xasan sheekh maxamuud iyo sheekh shariif oo wuxuu yiri madaxweynayaashii hore aan ka shaqeyn karin war waa beentis ma madaxweynayaashii hore waxay dhex fadhiyaan dilla Soomaaliya waa maya marka waa sheeka excuse me madaxda adduunyada qurbaha wadamada hormaray oo dhan markii dhibaato ka dhacdo waa la isku yimaadaa way soo wada gurmadaan isbitaalada ay tagaan qolaba meel ay tagtaa madaxweynuhu meel buu tagaa gacantu soo kaliya markii dhul gariir ku dhaco marka wadooyinka ay bundooyinku soo dhacaan waxyaalo badan aan ku leeyahay ninkan waa nin awalba meesha iska fadhiyay oo dana ku haystay laakiin Soomaali maxamed aanan u daneynin masaakiinta Soomaaliyeed oo 30 sano cadaab soo
hubkii la keenay soddon iyo lixdii konteynar waxaa lagu beeleeyey dhulbahante mareexaan lafta gareen cidda uu ka dhashay jilibka uu ka dhasho raxan weyn jareer weyne kullina waataan idin sheegay gaday joogaan ulajeedadu maxay tahay marka maxamed cabdulaahi farmaajo wuxuu rabaa inuu gado dego oo al-shabaabna hadda wiigagan soo socda ayay wada kulmahayaan mid kaleana idin sheegahayaan beri baa waxaa la soo gelinahayay suuqa in farmaajo uu cabsanahayo oo ku hadlay oo idaacadaha la soo geliyey in la dilaayo oo la leeyahay maxaa cabdulaahi wuxuu yidhi aniga qayra ma dilaayo maxamed cabdulaahi farmaajo laakiin farmaajaa qayra dilaayo maanta meel iiga qora kelmadaas aniga jaa wuu saxiixay go-aan uu la gaaray dadka uu la gaarahayey qayra boodboodayana waa laga takhallusahaya ayaana ka takhallusahaya maxamed cabdulaahi farmaajaana ka takhallusaya ana hadda runta inii sheegahay ama beeshiisu ha aato ama beesha reabtigiisa ha aato ninka la leeyahay xasan cali qayre waa laga takhallusaya waxaana dili doona maxamed cabdulaahi farmaajo anaa runta inii sheegahay wuxuu yidhi dowladdaydii iyo maamulkaygiiba waxaa horbooday buu yidhi xasan cali qayre uu yidhi marka idaacadaha iyo kaftanka waxay idaacadaha ka sheegaan sayno macallinaa tiri wiilkan eedada u ahayo ninkayga laysku diri mahayo dad baa ka faa'iidaysanaya waxaas dheg ha u dhiginina waa been anaa runta inii sheegahay waan ogaanaysaa waa soo baxaysaa xasan cali khayre waa la dilahayaa waxaana dilahaya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa dilahaya anaa inii sheegahaya runta taas waa taas dowladaha adduunka hubabkii ay nagu soo caawineen ood ogeydeen oo aan ka qaylinahayay muddo 3-4 bilood ah aan indhahayay konteynaro waxa soo gala hubab ka buuxaan maxamed cabdulaahi farmaajo wuxuu siiyey hubabkii aan ka sheekaynayay oo 36 konteynara wuxuu ku hubeeyey ouna la baxay maanta uuna ku hubaysan yahay inuu argagixiso noqdo oo samaysto ciidan argagixisa oo al-shabaabna oo gacan la yeelan doono wiigan ay wada heshiin doonaan say Soomaaliya uga taqallus lahaayeen xasan sheekh iyo sheekh shariif iyo cabdiraxmaan cabdishakuur anaa runta inii sheegayay farmaajo ciilka oo u qaba saddexdaas nin waa ciil oo maxaa dhacay waayo ciilka ugu qabaya dadku muxaafid iyo mucaarid ay adduun weynuhu yihiin ninku ma jiran yahay markaan indhahay waa jiran yahay waad iga rumaysan weydeen aniga maxamed cabdulaahi farmaajo ciilkiisa ciil ugu weyn waxa weeyaan in cabdiraxmaan cabdishakuur ninka la leeyahay sheekh shariif iyo xasan sheekh weeyaan kitaab jaamacuuna ku maray inuu ka takhallusa ayaka dhan oo noqdana qabiil beeleed ka sakow inuu noqdo raggan terroristayaasha wax dila inuu ka mid noqdo marka waxaan u sheegayaa cidda dhulbahanta intay ka qabasho leedahay inay isqabtaan ay xariga u gooyaan maxamed cabdulaahi farmaajo 36 konteynar oo la xaday oo xabada ah oo cadowga iyo al-shabaab loogu talagalay waddankeena inaan uga faaruqino ayuu xaday qabiil beeleed buu uga dhigay waad ogeydeen abey waa tuu soo dacwooday waa tii caabud waaq magaalada galmudug caabud waaq la geeyey hubab oo la yiri iskaga celiya habargidir ku baabi'iya habargidir iga raalli ahaada barkii hadalku waa sida u dhigan yahay soo hadalku yahay ayaan rabaa inaan u sheego oo nin ka dhaadhiciyo habargidir ku baabi'iya la yiri ilaahay qudradiisa dhowr jeer baa lagu soo duulay Ethiopia ku duuleen rag bay ka dileen way iska qabteen hubabkaas casriga ah oo 36 konteynar qaar laga soo qaaday la geeyay caabud waaq ayaa waxay kula dagaalameen magaalada Ethiopia abay waa tuu soo qayliyo yiri say ku dhacday yiri maxamed cabdulaahi farmaajo wuu soo hadlay wuxuu yiri anigu uguma talagelin inay habargidir ku baabi'iyaan aan ugu talagalay yiri bal sababta loo baabi'inayo habargidir maxay tahay ficilada iyo xaasidnimada habargidir u qaba maxay tahay maxamed cabdulaahi farmaajo maxay tahay haddii qof ciil qabahayo anigu inaan qabo weeyaan ciilkee anigu inaan qabo weeyaan dadkaygi baadi'iye lagu soo dhameeyey dadkii maxamed siyaad barre iga soo dilay dhibaatooyinka uu ii geystay raggu tiirka micno darrada uu geeyey caynaasha oo abtigay ahaayuu dilay waxaan ku leeyahay salaad gabayro oo nin adeerkayo hawiyaha oo abgaal cismaan oo weliba wacayslaa uu dilay waxyaalo badan inaan maxamed cabdulaahi farmaajo tiirka ku geeyey ahayd anigu waxa weeyaan maxamed siyaad barre qofa u soo aabba yeela ma leh hana wanaajiye hana xumeeyo xumaatadiisaa badneed ma fahanteen marka waxaan ku leeyahay ciilka uu qabo magaca hawiye tira badan oo hawiye kula dagaalamayo oo hubkii cadowga in lagu la dagaalamo la rabay oo u geystay gadaye meesheedii iyo ogaadeen dagaalka uu rabo inuu ku soo qaado iyo maxaa la yiraahdaa Axmed Madoobe horta Axmed Madoobe waa ninka taati ka badan waxaan ku leeyahay nimanka dhulbahante oo aad soo tababaratay iyo nimankii mareexaan oo electric ay ku soo tababartay oo la keeno la soo celiyay oo maanta jooga gada
iyo jareer weynaha afarta xabaa oo ku jira waxaan leeyahay meesha ku dhimanina Soomaalinimada haddaad wax ka rabtaan oo Soomaali aad tihiin maxamed cabdullaahi farmaajo waa nin jiran oo maskixiyan mental u jiran aan leeyahay waa inay ka soo tagaan warsangel iyo dhulbahanta ay soo haray waxa la yiri ninaana birri ku rari doonin yoona dhibaato ku geyn maanta waa inaad ka soo tagtaan oo ka soo goosataan ma ciidan beeleed iyo dagaal inaad al-shabaab oo kale aad noqotaan lagu soo tababartay mise waxa lagu soo tababaray inaad wadanka Soomaaliyeed aad badbaadisaan lagu soo tababaray ula jeedada maxamed cabdullaahi farmaajo uu leeyahay hadalladiisu way go'an yihiin hadal dheer haan ma buuxshaa la yiri maxamed cabdullaahi farmaajo 3,000 oo mareexaan ha loo soo tababaray kow waxa loo soo tababaray niman dhulbaantaa re'abtinimana maahane wuxuu rabaa frontada hore inuu geeyo oo baabi'iyo sidii uu yeelay wiilashii hawiye oo afgooya lagu dilo lagu qarxiyay may fahantay maxamed cabdullaahi farmaajo hawiye oo meel kasta intuu geeyay aaninaan ciidan hawiye ahayn ma ahane nin kale ma oona dhimanin marka waxay inii sheegayaa dadkan hadda gada la geeyo la soo tababaray iyo Etoobiyaanka oo isku hadlaynayo yiri markaan jabino hawiyaha iyo ogaadeenka waxaan in siinahayaa 15% aan siinahayaa oo sheer oo batroolka Soomaaliyeed horta inuu jiran yahay taasaad ku ogaanaysaan maxamed cabdullaahi farmaajo kow dhaha eletrayna Soomaaliya lagu soo gelin karto Etoobiyana diinta nabi maxamed oolan ciidan Soomaaliyeed ayadoo la yahay ayaan waxaan ka soo noqonay ardi sababa waa loogu galayaa abayna meesha lagu dilahayaa runtaan u sheegahayaa Soomaali oo dhan aan galeysaan ku leeyahay Soomaali oo dhan aan hadda ciidan laga dhigayaa markuu ka degto hadawnan abay faraha kala bixin problemka Soomaaliyeed oo wax ka abaabulahayo iyo duulaanka gada inta laga soo qaado Axmed Madoobe lagu soo qaadayo iyo Muqdisho hadawna ka tala bixin wuu ku jabahayaa ha ogaada isaaqna markaas uu soo galayaa dagaalka والله بالله أبي وكجبها يا عاو مال إيجا قرآنية أبي وكجبها يا محمد عبد الله فرماجنا جدو كل من هيا هدون كل من مرض كجرنا وكم يجرد بركي وحو حذا قلبي سومالي لوجو تلاقي لبعته وصودا والله شيء أنكو حنا يرتي سيد النبض إسلام هنا ضد الشهادة يراه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم dadka bilaadanka markay ashahaataan ay islaan yihiin ilaaha garab siinaya maxamed cabdullaahi farmaajo intuu nasixir karo waa soo sixir intuu wiil naga dili karo waa naga dili intuu hooyo gobliimin karo oo wiilasheeda baabi'in karo waa bi'iye intuu hooyo Soomaaliyeed aasay u saari karana uu u saaray hadduu madaxweyne nadiif ahaan lahaa oo qabiilka dhaafi lahaa oo wadanka wuxuu qaban lahaa qof kasta garab istaagi lahaa oo ardada maanta xamar ku baaba'san 3 sano ka hor jaamacadaha ka soo baxo Muqdisho fadhiyo oo wuxuu qaban lahaa oo jaamacadiya dadkii oo lacag haysan ayaa wax barasho laga dhigay yaa ka dhigay ma taqaana niman maskaxdoodu jiran tahay ayaa ka dhigay Soomaaliya waa inay wax kasta firi u noqoto hadayna firi u noqonina diinta nabi maxamed aan nolosha waligeed dawlad rasmi ah ka dhilanin iskoola wax barasho laga dhigaya goorma iskool wax barasho aan ka soo dhignay ilaa dawladda Cabdullaahi Ciise ilaa maanta goorme ay Soomaali hadda ka hor ay lacag ka dhigeen haddana niman aqliya oo oo 15 kana ku dhiman doona 40 kana ku dhiman doona ayaa buuxa oo Soomaaliyeed oo dhacay hooyo la qarxiyo hooyo la dhaco hooyo 15 laga qaado habar la baado horta kaasu goblan iyo wiil aan baa ku dhacaysa aakhirkiisa barkay waxa ogaataan xaqa bil aadanka feeraha ka dilaaca xasan cali qayrana waxaan jeclahay in laga gaarsiiyo inkastoo dad aad u culus aan xalay u sheegay oo Mareykanka jooga oo aan ku iri xasan cali qayra loo sheegay xasan cali qayro godkiisi waa soo dhow yahay waa qodan yahay horta ilaahay wax dila aadam wax ma dilo laakiin waxa dhibaato ah inta lagu dilo adoo silca maaragtay silc ku noolow oo dhaawacuna ku noolow waa aad u xuntahay adoo dhintaa la qaataa moogtahay barkee dad baa meelaha lisa go'ayaan dad baa lifekiisa si noqonaya qof baa curyaamaya marka waa laga fiican yahay dadkaas ayuu ka mid yahay dadka wax soo curyaamiyay maxamed cabdullaahi farmaajo xasan cali qayraaniga faa'iido iimoona sameeynin laakiin hadda favor baan sameeynaya wax kale nooguma sameeynayo Soomaalinimada iga keenaysa waa loo qaylay waa loo tashaday xasan cali qayre waa la dilayaa waana la qarxinayaa maxamed cabdullaahi farmaajo iyo faad yaasiin amarku ka baxay boodboode meel kasta boodboodaye bal maanta ka soo aruuri in lagu dilahayo kuleyba waa lagu soo gaarsiinayaa in laga takhalusahayo faad yaasiinna meel xun ayuu wax ku wadaa ninka konteynerada magaalada Muqdisho ka bixiyo ilaa gadageeyay waa asaga oo amarka maxamed cabdullaahi farmaajo ka qaatay wax allaalay waxay ummaddu nagu soo caawintay waa laga saaray wadanka qabiil beeleed oo al-shabaab oo kala ayuu rabaa inuu sameesto oo dawlad allaalay dawladda dhalata oo ku waxeeyo laakiin bal ilaahay waxaan kaaga qaaday meeshaada in lagu xasuuqa adoo jooga meeshaada waabi jiri jirtay in la yiraaho gobolka Gedo waabuu jiri jiray Gedo waa la dhihi doonaa intay goorgoor tahay maskaxda jiran oo in soo aaday iska soo bixiya Gedo
shicib Soomaaliyeed oo islaanaha degan maxamed cabdullaahi farmaajo oo raba hadda inuu sameeyo koox al-shabaab la mid ah oo kaleetana waa asaga shalayna waxaan maqlay ragga al-shabaab Mareykan ka soo masruufi jiray oo taksiilaha u ahaa ayuu ka mid ahaa taas waa inaad ogaataan walaalayaal dhibaatooyin badanaa socda waa inaad ogaataan marka waxaan idin sheegayaa maxamed cabdullaahi farmaajo waa deganayaa 7 bilood ugu soo horeysa barkii waa loo fatlooday sixirkii u fatlooday waxaa la yiri wadankan waad ku dhimanaysaa haddaadan ka bixin wax badanna ma haysan kartid la yiri ayadoona maxkamadda la saarin uu rabaa inuu dhunto laakiin waa soo qabanaynaa wadanka yuuna ka bixin ciidamada Soomaaliyeed waa maqlayaan maxamed cabdullaahi farmaajo waa tuug wadankoo dhacay ayadoona lala xisaabtamin iyo wadanka ka bixin wadankoo dhacay wuxuu dhacay qoryihii wadanka oo shisheeye in la iskaga daafaco la rabay wuxuu dhacay dhaqaalihii wadankuu bixiyey wuxuu samaynayaa rag maaragtay wuxuu soo celinayaa wahabiyiintii buu soo celinayaa dadka dili jiray oo gaaleyn jiray wuxuu yiri gadan waxaan fadhiisanayaa gada iyo halkaas marka walaalayaal waxay inii sheegayaa maxamed cabdullaahi farmaajo waa inaan gacan kulul iskaga qabanaa ama meedkiisa aan noo keentaan markii dhama anfacaya hadda ka bacdi waana dilay wuu dhaartay wuuna ka baxayaa wadanka ninka la leeyahay xasan cali qayrana asaa ka takhalusaya qof kale ka takhalusi maayaan waa go'aanay asagay Faad Yaasiin ku gaareen waa masayr asagoo haddii dadkii uu ku dhex jiro oo qofba maalin aadahayo maxaa loogu diidahayaa waay xasan cali qayr nin kastaba ragnimadiisa uu leeyahay wax ku hayaaye waay anigu waan ogahay inuuna faa'iido galmudug iigu keenin waan ogahay inuuna asxaan ii falin waxaan ogahay inuu guriga ila Cabdishakuur dadkii saxiixay ee meydadkii ka dhacay oo la duugo la isku duugay inuu ka dambeeyo marka waxay inii sheegayaa laakiin waxa la yiri labadii waxa la yiri laqdaba ku heshiisaa la yiri lillaahi daa isku dhufta ilaahay waxaan ka rajaynaynaa maxamed cabdullaahi farmaajo xasan cali qayr inay meel fiican ku soo kala haraan xasan cali qayr waji ma uuna sii geysanin dad buu xasuuqay dad buu baabi'iyey waa la wada ogyahay dad buu saxiixay maxkamad baa sugaysa asagaba laakiin waxa inii sheegayaa ilaaha naga qabanaya soola waxa la rabaa 36 container in la bixiyo oo gada la geeyay oo la rabo Cumar Madoobe iyo halkaas in laga soo baabi'iyo al-shabaabna hadda gacan la yeelanaya jaaway wada hadleen wiigan gudihiisa ayay is arkayaan kulmahayaan al-shabaabku wuxuu imaan doonaa oo laga xukumi doonaa gado say u dagaalamaan asaana masruufaya lacagta wadanka uu ka dhaco wadaay moogtiin marka waa taasa walaalo waa inaad ogaataan xasan cali qayrana loo sheego magaalada galmudugna waxaan ka baryayaa ilaahay guul inuu siiyo ay is ilaaliyaan barkee maxamed cabdullaahi farmaajo wanaag uma soo wado ciil xun ayuu u qabaa ogaadeenka iyo habargidirta aad buu u ciishoon yahay waliba si ogaadeenka wuxuu rabaa inuu asagu dhinacaas ogaadeen iyo kismaayadaas oo shanta Soomaaliya degtay inuu ogaadeen iska lahayn ayuu wuxuu rabaa inuu ka maamulo nin mareexaana keeno dilo horta Axmed Madoobe waa nin rag oo xiniyale waa laga taati ka badan yahay maxamed cabdullaahi farmaajo calool iyo madax kaliya ah inuu wax cuno wax dejiyo ma ahaan wax kale ma yaqaano mijin qaado uu fadhiyo ninkaana waa nin shan maaragtay waqtigiisa tukada shantiisa waqti ilaahay ku xiran ilaahay baryo weeyaan qofka bil aadanka lillaahi ila qadabana meel ma wada galaan marka waxay inii sheegayaa maantay farmaajo dhibaatada uu u soo hooyay Soomaaliya waa dhibaato ugu weyn marka waxaan rabaa bi-attention in la iska ahaado dadka Soomaaliyeed dadkii hore madaxdii hore xasan bimeno waa la hadlay dad ka mid ah madaxweynayaashii hore taxalay waan u sheegay ay dhiigayga farmaajona wuu la socdaa wuuna baxayaa 7 bilood ka yar ka hor u baxayaa adinka 7 ay niliyir laakiin 7 bilood ka yar u baxayaa waan ogaan doontaan sixirkii Soomaaliya wuxuu ka qaadi waayay marka waxaan la hadlayaa daraawiishta la hadlayaa waxaan leeyahay cidda daraawiishay dad sharaf iyo magac la ayaatiin yaana dadkii uu sayidku ka soo jeeday lisku kiindirin walaalaad ahaydeen dad ehelo isjecel baad ahaydeen maskax jiran ayaa ini maamulaysa haddaad ciidan tihiin oo inila soo tababaray inaad ciidan Soomaaliyeed tihiin waa inaad Muqdisho ka soo degataan waa inaad u timaadaan xamar waa inaad ku soo fayshaan ama Axmed Madoobe waa inaad tustaan inaad garabkiisa tihiin marka waxaan leeyahay nin jiran iyo isku kiindirin dad wada dhashay oo walaalaha oo ehelana waa tihiin magacu maalin buu ku baxayaan ku leeyahay dadka raacay oo ciidanka la soo tababaray oo gada lagu hayo oo la rabo in loo isticmaalo beeleed in lagu baabi'iyo ogaadeen iyo hawiye wax soconaya maahan waa iska kiin qabanaynaa hadhow dad baa na dilay iyo dad baa dhintay iyo cajaladahan waa duuban yihiin biri ka maalin idaacadaha la soo dhigahaya wax kasta maanta waa electronic waa la duubaa waa la dhigaa marka dhulbahantaha iyo warsangeliga waxaan leeyahay yaasiinada intaad akhrisataan waa inaad ka soo baxdaan waa sixrintiin ilaahay u dhawaada tukada
qofka tukada ma qabto sixirku waa inaad tukataan waa inaad ilaahay wejigiisa u dhawaataan waxaan leeyahay meesha aad ku jirtaan waa inaad ka soo baxdaan walaalayaal waa inaad ummaddiinna kusoo dhex darsoontaanaan leeyahay aniga waanay iga tahay waanadaasna waxaa la qaataa inaad u fikirtaan waxa haray waa bilo maxamed cabdullaahi farmaajo waxa u haray waa bilo ogaadeenna waa dad nasaba oo walaalaha ah yaa lagugu dirin ogaadeen meeshuu maalin galo maxamed cabdullaahi sanad hadda ka bacdiya ma geli karo anaa runta inii sheegahayo laysma hagrado yaana layshagranin marka taasaan inii sheegahayaa walaalayaal waana soo gelahayaa markay waxyaalo badan ayaa jira haddaanan soo kacay important muhiim waxaa ii ahayd horta inaan intaas iniisii sheego containeradii aan inii sheegi jiray 2 bilood ka hor in la qaaday oo la geeyo gedo la rabana in al-shabaab iyo loo qaybiyo qabiilooyinkii lasoo tababaray oo dhulbahantaha jareer weynaha waxaana la rabaa dagaal soomaaliyeed in lagu galo oo sokeeyo marka soomaaliya maalin kasta haddaan u taagannahay dagaal sokeeyo oo hadba nin jiran maskaxdiisu ay noo imaanayso meeshaan degi lahayno owlaadeenna iyo waxaan ayayada u nahay aan korsan lahayn adinkaa ini qusaysaa adinkaa ini ka rabaa hadda inaad maaragtay ka dhiidhisaan waa iska celinaynaa jareer weynena waxaa laga rabaa dadkii ay u dhasheen dadkaasu oo magaalada muqdisho jooga ama maaragtay shabeellooyinka jooga inay u yeeraan dhulbahantaha fiyow una sixir ku qabanin waa inuu u yeeraa warsangeliga sidoo kaleeto mareexaan soomaan de waa in adeerkiisa iska dhaafa qabiil loo waayaa layidhi alla cadaab laakiin qabiilooyin kaleeto oo beri mushkilo aan lahayn anigu waxaan dhihi lahaa ciddiina dhulbahantay waa ina kusoo fayshaan puntland nin wanaagsan baa ina haysta dad wada dhasha in ka dhex shaqaysanayo in ka dhex faa'iideysanaya daarood ismaaciilo maalinba maskax jiran intay soo baxday in isku kiindarin ayna in ka faa'iideysan runta inii sheegaya ummadda nabi maxamed yaana in kugu dirin annaku waa iska qaban karnaa waa iska celin karnaa hawiye haddaan nahay wallaahi iyo billaahi bakeeri biyo lagu cabo waa nooga fudud yahay maxamed cabdullaahi farmaajo iyo ciidamada iyo etoobiya iyo eritreyba haddaan magaca hawiye sheego waa iiga fudud yahay laakiin waxaa in leeyahay qabiilooyinkiina kale oo daarood yaa la isku kiindarin horaa loo soo jajabay horey soomaali u soo dhimatay qof dambe iyo wiil dambe iyo habar dambe inay goblantay naga dhimato ma rabno haddaan soomaalinahay shisheeyahana waa iska qabanaynaa maxamed cabdullaahi farmaajona wuxuu ka cararhayaa yaa maxkamadaha sugahaya yaana maxkamadahaas lagu saarin marka waxaa ogaataan inuuna meelna ku fakanayn oo habeen madow qoorta lasoo qabanahayo xasan cali khayrena waxaan leeyahay ha loo sheego be careful ha iska ahaado shirqoolkiisi waa bilowday waana la dilahaya waana laga takhalusaya altariga farmaajo walaashiisa ay tiraa farmaajaa la dilahaya yaa dilahaya al-shabaab buu gacan saar la leeyahay yaa dilahaya xasan cali khayraa meesha ku gacan galon waxba ogeyn oo boodboodahayo asna meeshiisi dhammaa iyo xafiiskiisi qabiilka kiciyey anyway intaasaan asxaanku ugu falayaaye is ilaali aniga asxaan igama istaahishid xasan cali khayro inkastoo nin hawiyaa aad tahay laakiin is ilaali waqtigaadii waa lasoo saxeexay walaalo waa lasoo saxeexay is ilaali salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu hadhowtaan is arkeen haddii ilaahay raalli ka dhigo dowradu